aniga halkay ii daloosha halka aan uga nugulay waa halkii waar waxaan leeyahay isaaq baana leeyahay annaga ninkii walooba cirka soo dumi ka waxa samayn karo waar waan ka saaraya sida looga saaran uga saaraya aniga dawladnimada maxay gaari ugu ah maxaa aniga gaari ugu ah wax allaale waxay gaari ugu hay ma jirto ama daarood ha ama dhulbaanta ha ama cid doonta ha kaamay hadlin raganimo xiniyaad leedahay linkiga aan naga heshay ama tanaasulka aan naga heshay ee habar yunis ka heshay gaar ahaan ayaa ka hadlinaya haddaad si gaabsan wada anagu rag isaaqaanuna waxaanan kuu sheegaynaa kugu celcelinaa ceeri gaabaanad soo qaadi karin sool baanad soo laascaanood baanad lahaan karin wallahi inaad nabad ku joogi karin reer sool iyo garaadadu lambarboon bay ka yihiin kow bay ka yihiin waxa ka ah garaadada dhulbahante ayaa kow ka ah ee maxaan ku raadey laascaanood maxaan dagaalka ka riday ee maantana sanaag doonayeen ka ridaan ee maalin walba afarta jahaba ka hurinaya dagaalka ee maalin walba igu dhaga hadlayay aniga qabyaaladeenaya kuwaasaan kow ka aqoon u jiray ballan waxaan ku qaadaynaa ama sanaag ha noqoto ama sool ha noqoto ama gobol kale ha noqotee in aanu nin kale ka talinin sidaan aanu doonayno nin ku dhaqmo mooyaan ballan baan ku qaadaynaa waxaan u sheegayaa dadka aan wada nool lahayn dalkan wada leenahay haddaynu kala xishoon weyno haddaynu isqadarin weyno waynu kala cabsoon doonaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد maanta shirkaygan jaraa'id waxaan doonayaa inaan ku iftiimiyo xaaladda dalka halkay marayso iyo ummadda reer Somaliland ama ummadda maxaan ku dhahdayay aan Somaliland ta ogolayn qorshayaashooda iyo ujeedooyinkooda iyo danaha ay leeyihiin inaan halkan maxaan ku dhahay waxoogaa ka dul istaago waxa weeyaan jamhuuriyadda Somaliland jamhuuriyadda barakaysan ee Somaliland waxaad moodaa inuu maanta shaarka wala soo bixin dhammaan cadawgiisa cid kasta oo Somaliland cadow ku ahayd ama Soomaali ha ahaadaan ama dad jooga Somaliland dhexdeeda ha ahaadaan dhammaan cadawgii Somaliland waxaad moodaa inuu maanta isku soo feeraqaawiyay oo uu u soo diyaar garoobay sidoo uu maxaan ku raahdaayay Somalilandnimada meesha uga saari lahaa waxaan leeyahay horta way riyoodeen dadka nooca u fikiraya dadka Somaliland isla baabiya dadka isla Somaliland way fashilmaysaa dadka isla Somaliland waxa weeyaan qarannimadeeda waxba yeeli karaysan waa dad riyoonaya oo naftooda been u sheegay oo waxaan ku been isku sheegay waxa weeyaan Somaliland waxaan cadawna wax yeeli karmaayo mid la soo kareysteen wax yeeli karmaayo mid soo dabad kaga yimina wax yeeli karmaayo Somaliland maanta waxay taagan tahay halkii ugu sareysay ee ay cid walba babac dhigi kar lahayd waxaan arkayaa qaar soo hanjabaya oo ku hanjabaya gobollo kamid ah Somaliland baanu kala qaybtayada yeelanaynaa maxaan ku raahday deegaanka yagaanu goosanaynaa xuduudda Somaliland waa xuduuddii Somaliland ninka ku dhashay iyo ninka meel kale kaga yimi ee aan Somaliland nimada ogolayna xuduudda Somaliland kuma dhex noolaanayo hadduu ku dhex noolaadana isagoo edeb leh oo maxaan ku raahday madaxiisa foorurinaya ayuu Somaliland ku dhex noolaanaya gobolku doonaha ka soo jeedo hargeysaha ka soo jeedo ka ila dhashay ha noqo hadduu ninka magaca Somaliland hoos u dhiga waxaan u sheegayaa madaxiisu hoos u dhigi doona Somaliland hoos uma dhigi doona madaxiisa ayuu hoos u dhigi doonaa isagoo sanku u daloolo ayuu ku dhex noolaan doonaa Somaliland haddii kale wuxuu tahriib kaga bixi doonaa waxaan u sheegayaa dadkii u soo halgamay dalkan dadkii u soo halgamay ee dadkan u soo halgamay ee Somalilandnimada dhaliyay ee calankan tawxiid kala saaray ee ku dhawaaqay inay Somaliland tahay oo dawlad madax bannaan tahay adeer wali way nool yihiin xay baanu nahay xabad baan ku xoreysanay barya kumaanaan samaysantan ninna kamaanaan baryin walaa mid degan walaa mid meel kala jooga ninna barya kagamaanaan qaadan hadiyadna noogmu siinin Somaliland xabad baan ku xoreysanay maantana kuwa ku nooli waa kuwii waxaan u sheegayaa xabad bad ayaad maantana ku aqbali doontaa nin kastooba xabad qori caaradii baad ku aqbali doontaa Somaliland
anigu waxaan ahay nin isaaqa waxaan ahay nin habar yoonisa haddii ay ummadaha qaar is yidhaahdeen yacni habar yoonis baa dib uga fadhiisatay somalilan waxbaa la yeeli karaa maanta anaa lambar 1 ka ah anigaa taagan halka ugu horeysa ee qoriga u qaatay anoo nin habar yoonisa annagoo ah habar yoonis ballan waxaanu ku qaadaynaa ama sanaag ha noqoto ama sool ha noqoto ama gobol kale ha noqotee in aanu nin kale ka talinin sidaan anigu doonayno nin ku dhaqmo mooyaan ballan baanu ku qaadaynaa waxaan u sheegayaa dadka aan wada nool lahaayeen dalkan wada leenahay haddaynu kala xishoon weyno haddaynu isqadarin weyno waynu kala cabsoon doonaa haddaynu iskala xishoon weyno oo aynu isqadarin weyno oo aynu waxaynu wada leenahay fadhi iyo hadal iyo walaaltinimo iskaga qancin kar weyno awalna waynu kala cabsoon jirnay maantana waynu kala cabsoonaynaa waxaan u sheegayaa dadka wax isbidaya iminka fitirta haya adeer afkayaga iyo hadalkayaga iyo maxaan ku dhahdaayay tanaasulkayaga ka hadliyay kaama hadlin raganimo xiniya aad leedahay ama daarood ha ama dhulbaanta ha ama cid doonta ha kaama hadlin raganimo xiniya aad leedahay linkiga aan naga heshay ama tanaasulka aan naga heshay ee habar yoonis ka heshay gaar ahaan ayaa ka hadlinaya haddaad si gaabsan wada anagu rag isaa qaanuuna waxaananu kuu sheegaynaa kugu celcelinaynaa ceeri gaabaanad soo qaadi karin sool baanad soo laascaanood baanad lahaan karin wallaahi inaad nabad ku joogi karin haddaanu gacanta ku qaadno waxaan leenahay dib ha u fadhiistaan dadka soo buuqaya ama garaada ha sheegtaan ama siyaasiin ha sheegtaan annagana cid waxna yeeli karta haddaanu nahay reer Sheekh Isxaaq ma jirto nin aan nabad nagula noolaanin colaadayada deeqda ninka nabadeedu deeqwada colaadayada deeqda inta Soomaaliland aan wada leenahay wada degno waxaanu gaanay heer aanu annagoo isaaqa u culowno heer aanu isku layno heer aanu kala fogaano laakiin wanaagaygu muu deeqin maalin walba meel walba oo nalaga hanjabaya Soomaaliland mulkiyadeeda cid baa iska leh lama wada laha cid leh waa annagoo isaaqa baa leh annagoo isaaqa baa leh waxay ka yihiin waxa weeyaan deegaan baan wadanahay haddaan wanaagaygu deeqweyno colaadayada waanu kala adkaanayna ninka waxa ka dhigay maalin walba nagu caayay Soomaaliland fucking Soomaaliland ma jirto Soomaaliland ma aqoonsan kanaanu nahaynale ayaa qabiil ka dhigay ta uu ka dhigay baanu la qaadanayna waananu kala adkaanayna xabad baan ku kala shalayna xabad baan ku kala adkaan sitoo safarta ugu fiiq dadkanaad sheegay waxa weeyaan dhammaan inta aan isaaqahayn Soomaaliland la degan dhammaan kaba kala reebi maayo inta nala degan waxa weeyaan hadii aynu isku qancin weynay walaalnimadii iyo bariyo wanaag isku qancin weynay wallahi xabad baan isku qancinayna taas markaa wanaag bay kula muuqataa waa ila muuqataayo adeer ninka wanaagayga diiday ee walaalnimadayda diiday ee wax wada lahaan aan wadnay ee aanu danteena ka wada hadalnay maalin walba xabada igu waday dagaalkii aflagaadada aniga halkay daloosha halka aan uga nugulay wahalkii war waxaan leeyahay isaaq baan leeyahay annaga ninkii walooba cirka soo dimi ka wax sameyn karo dawladnimada meesha ka waar waan ka saaraya sida looga saaran uga saaraya aniga dawladnimada maxay gaari ugu ah maxaa aniga gaari ugu ah wax alla waxa gaari ugu hay ma jirto ninka dhowr samarron waan wada qarankii baabis waar anagu ninka Soomaaliland qarannimadu maxay tahay anu qaranba ma aqoonsan Soomaaliland baan aqoonsanay waxaan aqoonsanahay anigu nin isaaq qabaan hadduu ninka samarron iyo ninka dhulbaahanta Soomaaliland ila yeelan waayo oo ila aqoonsan waayo aniga maxaa Soomaaliland tay ugu raray intaba waan aqoonsanay intabana waan ku ogolay nin walbana waan u ogolay inay qaran tahay inay Soomaaliland tahay inay dastuur leedahay inay madaxweyne leedahay inay baarlamaan leedahay inay dawlad leedahay inaan ka yaraa baarlamaanka ku jiray ee beelaha kala aha ayaa baarlamaanka ku jiray ga dhaxaya waxa la saxo system baa jira iyo nidaam wax lagu saxo iyo process loo maro processka wax lagu saxo la maro laakiin intuu media la soo fadhiisto inuu yiraahdo Soomaaliland ma jirto inuu wasaaradda ka shaqeynay marka xafiiska u galay Soomaaliland ma jirto inuu yiraahdo Soomaaliland waa ayo isweydiiyo adeer de markaa maaha yaa kuuri Soomaaliland ma jirto waar anaga nagu dhahan imika soo xafiisyada qaar ka soo baxna fakki Soomaaliland nagu leh kuwi ka shaqeynay bad qarankii dhammaaba ma ya qaranka ma maahe TV-ga kaliya 24 saacadood halkaas rag dhan oo baarlamaanka ka hadleynay ilaahdeen isaaq waa bahbahda isaaq nacnacda isaaq waanu baranay waanu ka ogaanay waanu fahamnay adeer maxaan ku ay maalin walba ka hadlayaan oo ay maalinna cadowga koonfur dagaalka naga wada taageerayaan maalina midab kale taageerayaan adeer anigu qabiil baan haytay Soomaaliland qabiil baan ka soo gala hadduu qabiilka kale ee Soomaaliland ila lihi uu ixtiraam waayo Soomaalilandnimada naga dhaxaysa hadduu ixtiraam waayo aniga Soomaaliland maxay ga galay Ibrahim Sultan Ibrahim soo taas ma cadaynayso hadalhayntii jirtay ahayd
in ragga koofiyadaha iyo cumaamadaha sidee salaadiintu ay caqabad ku yihiin Soomaaliland soo hadalkaagan markhaati ma waxaan kuu sheegayaa anigu nin Soomaaliland iga jecel iga ixtiraam badan ummadda iga ixtiraam badan ummadda anigu madaxweynahayga dhan baan u casilay dagaalkii Soomaaliland aan ku dhawaar iska casil dalka dagaalkii la sacaanood madaxweynahayga dhan ee aan soo doortay ee halka ay fadhiya ee aan dawladda ku ahay ayaan u casilaan ku dhig iska casil dalka hadduu ninkan u iska casil lahay gobolladaydi goosan uu leeyahay maanta uu Soomaaliland ba garanahayn aniga maxay markaa iga dhigay daanuna nin isaaqaan noqonaya dalka maxabad uu markuu igu tanaasulinayaa maxabad iyo qoriga caaradii igu tanaasulinayaa de xafiisiya jiriya dawladda iyo process loo maray ha yimaado oo hawsheeda halka tanaasulka qaba laakiin xabad inuu dhafoorka iga qabto oo uu igu dhaahdo qasab baa la igu tanaasul qori caaradii baa la igu tanaasulaya ama qori caaradii man dalka ku goosanaya hadaad ku goosan hadalka qeexdo mar reer Sool iyo garaadada jeeda reer Sool iyo garaadadu lambarboon bay ka yihiin koow bay ka yihiin waxa ka ah garaadada dhulbahante ayaa koow ka ah ee maxaan ku raadey la sacaanood maxaan dagaalka ka riday ee maantana sanaag doonayeen ka ridaan ee maalin walba afarta jahaba ka hurinaya dagaalka ee maalin walba igu dhaga hadlayay aniga qabyaaladeenaya kuwaasaan koow ka ku aan u jeedo waxa maslaxad meel ku muuqan weydiyo wada hadal iyo wixii la dhahay Soomaali hore loo yiri adeer ninka wanaagaagu deeq way xumahaaga deeqa wanaag intaasoo maanta intaasoo boqol inoo ay gacanta ku hayaan waliba way soo baayaan way soo dagaalamayaan gobollo kale doonayaan rabshado kale wadaan inta adeer maanan 20 cisho nagu qaadan mayso wallahi inaanu gacanta kaga soo furfurno ku haystaan iyagana cagta ku marino laakiin waxaanu eegaynaa waanu u tanaasulayna adeer choice kan yar halkan la sacaano dagaa jifada aan ka soo jeeda leegi awoodna uma laha itaalla uma laha ee wax naga haystaan laakiin respect iyo ixtiraam baan ku siinaynaa haddii ay se aqbali waayaan haddii ay se garan waayaan ay waliba soo bu'ayaan waxaan tusi doonaa iyaga oo tahriib kaga baxay iyagoo dhuumashaha Soomaaliland kaga baxay xuduudda wallahi ka tallaabay maca reerkooda